وقولي وزيرك ووزارة الدقن كيارمها دينتي جمهورية جيبوتي دكتور آدم حسن آدن وحسيقا روسو جيتين ده صحفيين تقارهان محمد عيسى آدن qolka gaarka ee library-ga ama lagu akhristo buugaagta ee gurigiisa ku dhex yaala wasiirka wasaaradda dhaqanka iyo arrimaha diinta islaamka Dr. Aadan Xasan Aadan qolkani waa qol gaar ah oo lagu talagalay nasashada gaar ahaan waqtiyada firaaqada uu leeyahay wasiirku inuu waqtigiisa si gaar ah u qaato Dr. Aadan Xasan Aadan oo ahaa qoraa aqoonyahan Soomaaliyeed samarahantaasina ka soo jeeda Jamhuuriyadda Djibouti ayaa ahaa gudoomiyihii hore ee qorayaasha afka Soomaaliga ee Somali Pen haatan isagoo arrimaha siyaasadda ku mashquulsan ayaa haddana waxa uu ku xusi doonaa isagoo wareysigan in uu mihnadiisa ama mihnadii qoraanimo oo ahayd waxa uu xiisaha badan yahay nolosha akhrinta iyo qoraalku uu ku qaatay inta ugu badan waqtiga yar ee uu firaaqada u helo inuu naftiisa la qaato waxaan si gaar ah ugu faalayn doonaa isla wareysigan gaarka ee Maxamed Ciise Aadan uu la yeelan doono wasiirka wasaaradda dhaqanka iyo arrimaha islaamka ee Jamhuuriyadda Djibouti qolkan gaarka ee library-ga ee ku yaala guriga wasiirka waxa uu qaybsan yahay gaar soo khaanad waliba ay sharaxayso qayb gaar ah oo markaasi macluumaadkeeda uu yahay khusuus waxa buugaagta library-ga yaala kamid ah qaar ka hadlaya arrimaha dagaalka arrimaha siyaasadda arrimaha diinta arrimaha dhaqanka iyo taariikhda dunida gaar ahaan kuwa Soomaalida waxaanu wareysigan u gudageli doonaa haatan uu la yeelan doono wasiirka Maxamed Ciise Aadan oo safar gaaban ku yimid xarunta dalka Djibouti ee Djibouti الوسيل واحد وبحين كون نقص الليبراري قاعد يرى كون وحاسو تاريخه كلية مفهومتي قرابة هاي واحد هيد قدوميه سومالي بن وقت قاعد فراغة بعه هلكن كو قاوته الليبراري قاعد يرى سنة وبس كده سبب وبحين كون نقص بسم الله الرحمن الرحيم كل كان يعرف النصر الماضي ومكتبة الكوبان وأنت بدل وحقيقة لا وحى عن أخيه أنت ما كوش قينيو أما أنت مالت عن كل كاسي أخس كيجا مفرد
laakiin wixii buugaag ahaa kayd ahaan haystay kuma dhan oo halkan wada yaaliin xeraysan yihiin. waktiga ugu macaanan qaato oo waktigaan halkan fadhiyo oo aan keligeyna ahay hadda ma soo wada koobi karaya dabcan sidaa ma isticmaalo, laakiin waktiga igu wanaagsan aan qaato oo waktiga aan fadhiyo halka. buugaagtida aad ku buugaagtaasi kolba waxay ku xidhan tahay topic aan markaa taagan ee baaritaanka aan ku sameynayo, haddii uu yahay sugaan, haddii uu yahay dhaqan, hadduu yahay siyaasad, hadduu yahay diin, kolba wixii markaa topic ahaan aan hawsha aan hayo ee asaasiga ah ayaan dee ka isticmaalaa. dhinacan kaa dambeeya waxaa u badan maaragtay waa wixii diinta iyo khuseeyey arrimaha islaamka iyo guud ahaan diimaha oo dhan. waxaa dhinacan kala xiga maaragtay waa sidaad arkaysa caafimaadka iyo wixii ku saabsanaa. example haddaan tusaale kusoo qaado, halkaan dhakhtar joogin buuggaasi waxaan helay waxaa laga yaabaa inaan 20 sano ka hor kolkii aan ardayga ahaa maaragtay dugsiga dhexe de wiila soo guuraa wiila soo weynaada ama waxbaa kusoo koray. inta kalena dabcan qaamuuska caafimaadka iyo xanuunada maaragtay casriga faraha badan ayay ka jawaabayaan. sugaan taas harna waa sugaantii maaragtay af ingiriisiga ku qornayd oo sheekooyinka u badan iyo novels u badan. waxii dagaalka iyo istaraatiijiyadaha ku saabsanaa saad tilmaantayba. marka adigu kolba wixii aan hayo, laakiin waxaad ogaataa aqoontu xadna male, ma kala qoqobna way soo wada galgashaa, midda kale ayay maaragtaan ayay kobcisaa. laakiin waxaa jira eriyooyin marka buugaagta qaar aad akhrinaysid si gaara aad ugu raaxaysid oo macno weyn kuu sameeyo, macno gaar ah. tusaalahaan oo kale takhasuskaaga masterta waxaad ka samaysay istaraatiijiyadda iyo arrimaha militariga. halkaana waxaa yaalla buuggii aad turjuntay xeeladaha dagaalka oo intaasna jeclaan ayada lafteeda aad warbixinaysid iyo buugaagtaas xeeladaha dagaalka sidiisaba maaragtaan bini aadamku waxa uu ka shaqeeyahay waa sidii dagaal loogu hortegi lahaa. wuxuu u jecel yahayna waa nabad iyo deganaansho. cadowga deganaanshaha iyo nabaduna waa isla aadamaha. waxa hub la samaysanayo, waxa derbiga la samaysanayo, waxa aad aragtay maaragtay maraakiib iyo diyaarado, waxaasi waa sidii nabad loo sugi lahaa. ee kuma jirto sidii cid loogu duuli lahaa ama loogu dagaaltegi lahaa, laakiin sidii nabad loogu sugi lahaa baa loo sameeyaa. wayse dhaaftaa waa lagu dagaalamaa iyadoo la dhigtii karta. kolka xeelada ugu wanaagsan ee dagaal lagaga baaqan karaana waxa weeyaan inaad awoodii kaa celin lahayd cadowga samaysato weyaan. anigu intaanan dagaalada iyo military affairska iyo security-ga iyo waxaanan aan baranin dee waxaan isku haystay inaan wax walba aqaano, laakiin marka filligaa kale waxaan bartay inaan runtii jaahil ahay, waxaan garanayaa jirin. dib ayaan marka ardaygahay oo baxrigaas imika unbaa albaabadiisa u furmeen oo takhasuskiisa ku jira. waana runtii takhasus aad iyo aad u qaalib ah oo sidii dagaalada loogu hortegi lahaa, sidii hadday ay dhacaan loo xallin lahaa, sidii diblomaasiyad midabyo badan leh loo isticmaali lahaa, ummadaha maaragta la isku dhexgelin lahaa, iyo sidii regional integration loo samayn lahaa oo dadka gobolka deganay ay dan qurahaati u yeelan lahaayeen, iskuna taageersan lahaayeen. waxyaalahaas ayaa kamida maaragta waxyaalaha lagu daro cilmiga.